seminar socday 2 beri oo bilowday 27 Febraayo uu maanta ahaa 28 Febraayo 2018 alxamdulillah seminarkaas oo ahaa nutrition dhammaan baxda ka soo qayb gashay aad u mahadsantihiin haddaan information yar ka bixiyo SOSDO waa koobiyaha garaadka bulshada Soomaaliyeed halkudhiska oo SOSDO ayaa ah taada kale Somali Society Development Organization waa language-ka mise Latin-ka ah waxaana la aasaasay 12 Agoosto 2017 waxaan aasaasay dhalinyaro Soomaaliyeed u fiirisay baahida jirto wadanka dhanka waxbarashada SOSDO barnaamij only ma qabato waxbarasho intaan hadda ay asaasan tahay barnaamijyo waxay qabatay ay ka mid tahay charity samafal ilaa waxay fulisay 5 charity mise ilaa 5 samafal ay ka kooban yihiin degmada Hodan degmada Waabari degmada Dhaqiile iyo degmada Wadajir iyo xarun agoon loo furaayay 14 Oktoobar dadkii qaraxii wax ku yeelanayay oo ka qayb qaadatay barnaamij ahaa inay ardaydaasi bixiso buugaagtoodii qalimaantoodii intaba iyo meeshii ay wax ku baran lahayn macallimiintooda qayb ka geysatay barnaamijyo badan ayaa jiri doona halkaas aan ku soo gudbinayaa waxaan halkan ugu mahadcelinayaa madaxda maamulka jaamacadda Himilo waxaan halkan ugu wici doonaa aan jeclahay in maanta shaadi sharaf ku guddoonsiiyo maamulka Professor Cabdikariim Aadan Xuseen Professor Cabdikariim Aadan Xuseen حالي حسن بونه معاني كما تحسد ما بيناي نسيجارة كلي لا تنسوده. برشوا نكسر أنا بقول حسن وايد حسن علي. أدينا هذا كنا عن قبل هذا يا. أدينا بلدي نسيس حيو قطان. وحلا وحب صاب سنوتريشن أدينا نقول له تقال لي. أدينا نقول له منطقة classification of the disease. أدينا نقول له منطقة واحد كسر نوتريشن بصاب سن. واحد كسر نوتريشن بصاب سن. إلى أن يصدر بطاسة كبر هذا. أدينا هذا كنا نقول وعن كعصنا اللي ما كان صاحب بدأ organization كان وطن. إنه يسميشن الكيجان. إنه يسميشن الكيجان صوابه. رضي وضعك وحو برتي أو وضعك وصوكري أو الله بدينا وحدته واحترام وإيدك هو. إيدك هذا واحد ليبرن وحول بريء وخمس سنين. أنا يصير وعن واحد صوب برتي يا في عن القفل هنا واحد لوبر. القفل واحد لوبر. ما في عنا مثلا قفل بني آدم كإن لا الله عز وجل ولا نجرب واحد هو. مركا إن شاء الله تعالى وحن إلهي في قبرنا وحبرشة أسكت جتان من إلهي أنك رب درب إذا كان دلال لي رسمية وقت يكون حسابنا بريء وحبرشة أنا رسمية أنك رب درب ورأيي كان صاحبين وحكى عصنا يا إن يبغون دلال هذا أولا إن يلا الله بان وأبرجونة أنا مسؤول تبصر وعاقب بعد الله تحول تبصر وفتمو جامعات العاطفة وفتمينا ترين وحسي والله بين المشاغي ترين هذا ترين وده بين القاطي وحنكون في $6 شن مامو $6 إلهي معبود شن مامو $6 ومنهج من تقول سيد وينه سلام ديران صحبات سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مركز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برشة استوبرت أقوال السين خبرة الفائريسي كل إن مسكح يمان هذا بن آدم كان نرده هذا أساسي وهو وأقوم هذه علينا بقول كيو بقول organization كا لو هذا بريء أو بركي training يدين ودي طبعا وأنا صديق وضدك بقبره ولي وحبريسه ويبلغنا تاعي وحبريسه حيالها أمي سو حكم ده هوا بريدة حاجة الفرق هو ده هي training تيجين كا وهو وقت بدن صعب training كلاكين وهو وقت كوبان وقت يرصع مركا عن organization كا نقول invite جري كل جين لولا سبري يعني SOSDO نقول invite جري لولا سبري training إنه نصير human nutrition diet therapy أهمية النلاش النفط أولادها طبعا في مديه إن أول ما هذا علينا أرجينا
in la kala faa'iidaystay organizationkan uu noo faa'iideeyey annagana aan faa'iidaysanay waxaan leenahay fi miisaan xasanaatikum ilaahay ha ka yeelo in dadka waqti la geliyo oo la tababaro la wacyigeliyo waan ognahay waqti ka hor howlahan iyo barnaamijyadan ma jirin 10 years before waxbarasho intaan la eg wacyigelin intaan la eg baraarujin intaan la eg iyo dhiirigelin intaan la eg ma jirin waa arday iskuulka aado hadduu ka yimaado meelo kale laga saameeyo noloshiisa iyo qabadkiisa iyo maaragtay horumarkiisa aysan macno badan u samaysnayn maanta laakiin isbeddel ay imaaday technology ay imaatay waxbarasho ay imaatay dadka ha la horumariya ay imaatay saanan waqtigeena uga faa'iidaysanaynaa organizationka waa rajeynaya insha allah inuu tababaradan iyo trainadan noo sii joogteeyo adinkana waa rajeynaya insha allah programkana ka faa'iidaysateen programyada kale ee organizationka uu bixinayo soosla bixinayaan inaad ka faa'iidaysataan organizationadan oo organizationada charity-ga ah ee maaragtay sida tadawuca ama yani samafalka ah dadka ugu shaqeeyo dhalinyaro isku tegay dabcan ayaga objectivekooda iyo visionkooda iyo waxay yihiin ayaga ka sheekeynaa laakiin intaan isla wada fahansannaha waxay tahay waa organization waa from society to society alla meel walba waxbarashana dabcan saas waayo meel walba oo dadka wax lagu baraayo ama wax laga baraayo waxaa la dhahaa waa u adeegidda kobcinta iyo horumarinta bulshada wax u taagan waaye marka kelmad kaloo meeshaan iga furan ama erey kaloo meeshaan iga furan ma jiro oo aan ka ahayn inaan organizationka iyo maamulkiisa u mahad celino inaan adinka oo programka ka faa'iidaysta labadan beri idin mahad celino aan isku wada dardaaranno adduun wuxuu ku horumaray waxbarasho iyo aqoon waaye meelahan aan ku wada haminayno maskaxda iyo imaanka ku hayno waxa lagu dhisay oo lagu horumariyey wax looga qabtay oo muuqaalka iyo bilicda maanta ay leeyihiin lagu sameeyey waxbarasho iyo cilmi waa jahlina ma aha nasabna ma aha dhalashana ma aha muuqaalna ma aha dhulna ma aha haddii dhul khayr iyo wanaag leh uu horumari lahaa dhulkeenaa horumari lahaa africa horumari lahaa yurub iyo maraykan iyo australia wadamo horumarsan wa haddana geographically marka laga hadlayo waxaa ka khayraad iyo barwaaqo badan africa macnaheeda marka ma aha resourceka dhulka yaallo horumarka waxa keeno ee horumarka iyo kobaca iyo waxqabadka iyo waxtarka waxa keeno sameeyo bini aadamka waa soo dad horumarsan meelaan horumarsanayn horumarin karaa laakiin meel la horumarin karo dad aan horumarsanayn haddii joogaan wax horumara ma samaysmi karo marka aan ku wada dadaalna insha allahu tacaala inaan wax qabsano inaan wax samaysano annagoo meesheenna iyo dhulkeenna iyo gurigeenna iyo hoygeenna iyo ciideenna joogno aan aaminno insha allahu tacaala inaan wax qabsan karno waqti badan ma jiro aadaan dhammaan iskugu wada mahad celinaynaa on behalf of Himili University-na dabcan oo idin mahad celinayaan inaad yani dad waqti ka faa'iidaysanaya aan wada nahay intaasaan rabaa insha allahu tacaala si guud ahaan inaan kusoo gabagabeeyo jazakum allahu khayr assalaamu calaykum waraxmatullahi waxaa kaloo keena mataqaana tiiman gaajada waxyaabahaas oo dhan waxay yimaadaan maxay xilliga mataqaana musiibooyinka yimaadaan musiibada waxaa loo kala saaraa laba qaybood mid waxaa la yidhahdaa natural disaster oo musiibada kaana sida dhulgariirka oo kale fatahaada oo kale ilaahu baniga reeb waxyaabahaas waxaa isku yidhahdaa waxyaabahaas waxaa isku yidhahdaa natural disaster waa waxyaaba dabiici ah oo rabbaani ah oo ilaahay subxaana wa tacaala u keenay mid kale waxaa yidhahdaa man-made disaster man-made disaster waa wax bini aadamku gacantiisa ku saabsan sida dagaalada in la isdoobo la isocooga waxyaabahaas oo waxaa weeye waa man-made disaster inta la safahay annaga labadaba isku keenaysan haddaan soomaalina maxaa isku keenaysan labadaba isku keenaysan sanadkasta abaara ugu dhaca waxay keentaa cudurro fara badan yay keentaa haddana maxaa noo weelay waxaa noo weelay man-made disaster labada dhinac waa inayna la buuqa insha allah waxaa kaloo keeni kara chronic medical conditions waxaa keeni kara mataqaana cudurrada raaga oo qofka biniaadamka ku dhaca a condition that causes a lack of appetite macnaa cudurrada qofkaas cudurrada ku dhacay waxay sababaan maxay tahay in qofku wax qaadan waayo oo ku dhaco maxay wax loo yaqaano poor appetite ku dhaco waxaa kamid ah kansarka kamid ah waxaa kamid ah liver disease kamid ah persistent pain kamid ah xanuunka
يا كميدة وعاكو كميدة مثلا أنا وعاكو كميدة مثلا نوزيع كميدة أنا بقول لك كميدة mental conditions كميدة such as depression وحنون كميدة حنون ما كل عملها مصلحة بقى وحقه سريع anxiety جيو depression anxiety يا صار وهو anxiety وقف مثلا لو بيجي مثلا بيسترسي وقف مثلا ولا عبره ولا كل وعاوز يحاول وإلى وقت أول سنوات وحلو واحد صار كده ورفع حاجة مصلحة الواحد